shalay Maraykan waxa ka dhacay mala socotaan ee la daawada. And something different. There is now a member of the European Parliament from France who does not think the U.S. represents the values of the Statue of Liberty anymore. They want the Statue of Liberty back. So is President Trump going to send the Statue of Liberty back to France? Absolutely not. And my advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country. Kelly. gabadha hadlaysa u jeedaan waxa weeye shaqadeedu waxa weeye waa Maraykanka طبعا صحفيintu dhan baa White House isku gabadha marka hadlaysa waxa la yiraahdaa mutaxadithada البيت الأبيض يعني dadka oo hadlaya ama saxafiyiinta qaabila way oo hadla I think Soomaaliya manihiin anagu qof yani oo hadla fikirka مثلا siyaasiyiinta meesha fadhiya على الحاصل waa la haystaa Western World ama galbeedka nin marka uu Faransiisa baa wuxuu weydiiyay gabadhaas inuu annaga hadda Faransiisnahay nin waxa jira barlamaani Faransiisa oo Twitter ku soo qoray kamaal barlamaanka Faransiiska geeyay إنه واي أن تعالى ما أعرف حرية New York تعالى منسوع إنه طبعا history أهان تعالى فرنسيسك بهدية أسية أمريكان نين أو نحات لي هذا قوة تعلوين كقراءة مسامية وفرنسيسة شركة سوبقولي أفرتن سنة كهر بهدية أسية مدحوينها أمريكان كوارث علشان أنا حلوفة إسرائيل هاي أمريكان أوكي تعالى يعني قرن يبربي تعالى فصاحبتي متريسا كدحيو وفوق between فرانسيسكا يا مرايكا نينكي marka oo maxaa saxafiga wuxuu ku yiri barnaamijka Faransiiska baa wuxuu ku leeyahay haday Maraykan isbedeli siyaasadiisii oo raacay dadka daalimiinta taalada xorriyada ma matalaani ilaa xorriyad Maraykan kama jirtay hal loo soo celiyo yani wuxuu ka wadaa in طبعا ogtiin Europe waxa jira dagaal between Ruushka iyo Maraykan iyo Ukraine afwan markay Europe oo dhan waxay la jiraan Ukraine okay ayagu xataa rabin inay geliyaan EU ama Ukraine inay ka noqoto member itixaad ayagu markay waxay ku madducoonayaan inuu Maraykan oo hadda especially Trump kii hore Biden baa la jiray aad u taageeray Ukraine yani sayid wuxuu ka soo horjeedaa Ukraine oo xooga waxa laga yaabaa dhinaca Ruushka inuu u bato oo heshiis halka ka timaado Maraykan iyo Ruushka heshiis waad ogtihiin first time in the history Maraykan iyo Ruush baa ka wada hadlay arrimaha Yurub ka hadlay oo hal qof Yurubiyan la casumin Sacuudigeena ka dhacday hatta weekii sheekadan yana ku dheereen waxay u jawaabtay jawaab culus oo taariikhiya maxay marka ku tiri waxay ku tiri ninkaas barlamaaniga waxa diga geesaa oo magaciisa aan rabin inaan sheegayaa wayasaysa ma garat waxa diga geesaa hadalkaas oo ah inuu asaga iyo inta qof aaminsan fikradahaas Faransiisko dhan waa inuu yiraahdaa shukran Maraykan waa mahadsantihiin علشان maanta Faransiisku ma ku hadlin afjar history ahaan dagaalka adduunka labaad Hitler Paris uu galay soqt uu ku tirtiray ummadan ma garateen marka iyadu waxay leedahay annaga safgareen waa runo jurugo dhiiqa gashay Maraykan baa yimid oo xaqadka u tumay oo ka saaray odagan Hitler yiraahdo jabshay Ruushna dhinac uu ka taageeray laakiin Maraykanka askar soo dirsaday wuxuu tiri maanta waxaad ku hadli lahaydeen af Jarmal Faransiis maanta ma haydeen marka Maraykan Great America shukran ku dhow mahad celiya ma hayna taalooyin iyo waxa iska doodaan hadda siyaasadda iyo taariikhda iyo historyga way soo socotaa أي قف ربا سياسة إنه قالن مستي history وطن كمان وحكي تقالنا حتى السؤال بينو الدنيا سؤال هداتين سطح لنا عنوية number 1 انتي شعب وحاجرة أنكو انكبت ناديني تاريخهان إن أفكو ذا اللي بدأ number 2 انتي وحاجرة الشعوب دون كمان تشوكتا أنكو أن كلنا هاي سامين مقد يا culture إيسو برطاسنا انتي ودن باجرة وما انت تشوكا وأنه أصل أهان حكومة جرني ومانت طبعا نجا مراح بناي مركب وحال ربا أنك صومالي هدانا هاي وإنا صدح واحد سكتر سنة أوكي وإنا دسلا هاي ستا إسلويني ده صومالي ده عقلية عدانك سرتا عرفتا ساسا كوبت بادي كرتا وصومالي كوبت بادي كرتا يا طبعا you must know your history جاء وينات كوركا هايسا at least بقولكي سقاشن عشان سيدا اللغوها روسن